bangiga Salaam Africa Bank oo kamid ah bangiyada Islaamiga ee ka shaqeeya dalka Djibouti iyo maanta magaalada Cali Sabiix ka furay farciisi lixaad ee bangiga. Munaasabadan lagu furay maanta Cali Sabiix ee bangiga Salaam Bank Africa ayaa waxa ka qayb galay wasiirka tabarta Djibouti gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix, taliyaha ciidamada booliska iyo madaxda bangiga iyo marti sharaf kale. munaasabadan xariga looga jaray farac cusub ee bangiga Africa Salaam Bank ayaa waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha maamulka Djibouti ee bangiga Africa Salaam Bank Umar Cigaal, gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casow iyo wasiirka wasaaradda tamarta dalka Djibouti Cali Yaqub Maxamuud. maanta kaga qayb galayna qaybtii lixaad oo Salaam African Bank inaan u furo maanta oo markaasi farxadaasi labadii farxadood hore ay sii saddexayso. ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala khayrka weyn ilaahay baa mahad waxaana mahad markaasi madaxweynaha dalka oo markaasi waxa weeyaan u hawlgalay sidii loo hormarin lahaa dalkeena iyo dadkeena. Salaam African Bank waa baananka islaamiga ugu horeeyay dalkeena waana kuwa ugu hadda muxuu dhaqdhaqaaq badan waa banki uu furay madaxweynuhu. aniga ku hadlaya magii madaxweynaha Ismaaciil Margeli magii xukuumadda iyo magacay gaarkaba waxaan soo dhaweynaynaa bankan jadiidka. bankan wuxuu ku turjumayaa dhaqdhaqaaqa firfircoonida iyo horumarka degmadana Cali Sabiix iyo ku turjumayaa haddii baan labaad nii sameeyay waxay ka dhigan tahay dhaqaaliga Cali Sabiix uu kobcay ka dhigan tahay. waxaa fursad muhiim ah maanta halkan Cali Sabiix mashaariic aad u waaweyn oo bank aad qiimo weyn u leh dhaqaalaha dalkeena. kolka bankaasi halkan buu nala soo dirsay waxaan anagu haddaan nahay mas'uuliyiintii leenahay dad gobolka Cali Sabiix shacabka reer Cali Sabiix horta inay ka faa'iideystaan ay dhaqaalahooga gashaan. bankuna waa baan la shaqeynaya dadka wax haysta. Maxamuud Cusmaan Burhaan, telefishinka caalamiga Universal, Cali Sabiix.